walaalayaal haddaad seexataan anugu ma seexdo walaalayaal haddaad seexataan anugu ma seexdo walaalayaal xaaladaydu aad markaan dhinto waxay qabanaysaan ama iga sheekaynaysaan ama i hadal haynaysaan ama iga hadlaysaan walaalayaalow intaan noolahay haddaa iga hadli weydeen walaalayaalow wax iska kii weydii weydeen walaalayaalow warme waad ixtaraysaan oo xaaladayda ka hadlaysaan walaalayaalow aniga halbowlayaal baybaan caafimaadkaygu waa dalka dibadiisa walaalayaalow inta la nool yahay waxa la isu qaban karaa walaalayaalow inta la nool yahay waxa la istari karaa qof walba hadduu dhinto camalkiisa iyo hawshiisa ka badan walaalayaalow garab halaysiiyo walaalayaalow anigu waa xanuunsanahay halbowlayaal baybaan wiil soomaaliyeed baan ahay muwaadina marmar waxaan tiraahdaa soomaaliga waad ahayn dhaba walaalayaalow waayo intaan qaylinayay iyo intaan tiktok ku jiray wallaahi isuma dhowa walaalayaalow garab halaysiiyo saxa ilaah baan idinku dhashay wiil soomaaliyeed baan ahay xanuunsan naafaa halbowlayaal baan yihiin maanta haddaan wax qabsan karo sidaa tiktok disuula soo dhigeen laakiin waxaan ahay nin naafaan waxba qabsan karin qof walbana sanka ka qabsada oo dhahankii curyaanka awaaka aniga xanuunka ilaahay baa ii keenay subxaana wa tacaala cid maana baryi jirin nin xooggiisa ku shaqaysta baan ahaa laakiin danta iyo xaalad ilaahay qoray unbaa ii timi marka xanuunka ilaahay waa laygu nacay bino'aadanku waa igu nacay laakiin ilaahay baa xanuunka ii keenay ilaahay baa ii raba oo xanuunka ii keenay qof walbana ummadda ilaahay abuurtayna ilaahay waa u dhex mid caafimaad qaba buu soo qabanaya mid xanuunsan buu caafimaadinaya marka ilaahay baa xanuunka iyo caafimaadka labadaba keena subxaana wa tacaala taa ogaada ilaahay baa xanuunka ii keenay ilaahay baana xoogaygii soo celi kara tacaalidu meesheeday ku jiraa walaalayaalow marka garab halaysiiyo mise waxaa u baahantihiin inaad hadhowdii markii aan dhinto oo sidaan u qaab leeyahay aan dhinto inaad wax iska kay weydiisaaniin oo tiraahdaanin nin baa dhintay ma maqasheen abubashiir walaalayaalow garab halaysiiyo walaalayaalow inta la nool yahay baa adduunka wax laysugu yahay inta la nool yahay baa adduunka wax laysugu yahay walaalayaalow dad ladan baa la caawiyaa dad maal haysta baa la caawiyaa dad caafimaad qaba baa la caawiyaa dad ganacsi leh baa la caawiyaa